السلام عليكم. waxaan ahay Qaasim Maxamed ku soo dhawow muuqaal kale sida aan hore ugu soo sheegnay muuqaalkii ka horeeyay kaas oo aan aga soo hadalnay dadka sunta ah iyo saameynta halista ah ay ku yeeshaan nafsadaheena. dadka sunta ah waxaan soo sheegnay inay yihiin kuwa aan marnaba noo quurin wanaag iyo deganaan nololeed oo ay ka xumaadaan marka aan gaarno guul ka mid ah guulaheena nolosha, isku keentoosta nolosha, danaheena raacanno, ku mashquulna qaabaynta, horumarinta iyo dhisidda nafsadaheena. marka aad fiiriso dadka kugu hareeraysan, ma kaaga muuqdaan dad leh dhaqamada aan hore u soo sheegnay? ma ku dhex aragtay asxaabtaada ama dadka kuu dhow qof jecel inuu ku maamulo, arrimo aan wanaagsanayn kaaga sheego dadka aad isku wanaagsan tihiin, isagoo kuu sheegaya xumaantooda, kaa dhaadhicinaya inaad ku socoto waddo qaldan oo aad ku dhici doonto bohol, hadhowna aad ka shallaayi doonto, oo tashwiish iyo khuraafaad kuugu fura, sababtuna ay tahay nacaybka uu u qabo dadkaas awgeed inuu adigana ku beero qalbigaaga iyo maskaxdaada. ma jiraa qof ka mid a dadka kuu dhow ee nolosha, shaqada, xiriirada aad wadaagtaan oo aad kor kala socoto inuu yahay qof kuu qosla marka aad la kulanto, hadal macaan kugula hadla, kuu muujiya inay tahay ama inuu yahay qof wanaaggaaga jecel, dadka kaaga dhow, ku daneeya, balse adigu aad la socoto inuu yahay xaasidkaaga koobaad. xaasidkaaga koobaad ee ka shaqeeya jabkaaga, burburkaaga, sirahaaga faafiya, aan kuu quurin inaad wax dheeraato isaga. marka uu noloshaada ku jiro aad dareento ciriiri iyo maskax xanuun oo aan marnaba kala kulmin wax wanaag ah oo aan ka ahayn inta uu kuu jilayo, dabcan waa laga yaabaa inaad la kulanto dadkaas ama ay ka mid yihiin dadka kuu dhow oo aan noloshaada ka qarsooneen. haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo koobayaa 10 qaab oo ka mid ah qaababka ugu wanaagsan oo aad kula dhaqmi karto dadka negatifka ah ama sunta ah si saameyntooda halista ah aad uga badbaado. ha isku dayin inaad beddesho dadka sunta ah ee ficilada xun kula dhaqma dadka kale, ka shaqeeya qaskooda iyo colaadooda, misana iyaga u matala weji wanaagsan, u muujiya farxad iyo danin aan jirin, balse raadiya meelaha ay ka dhaawici karaan, ka lugoyn karaan, ciriiri u gelin karaan, kaga xanuunjin karaan ama istarays ay ugu furi karaan. intaba dadkaas ha isku dayin inaad beddesho oo aad ka dhigto dad sidaada oo kale ah, waayo waa dad caqli ahaan u liita ee maslaxad u arka mar walba inay iska hor keenaan dadka isku wanaagsan, kala geeyaan dadka isfahamsan, kuna mashquulan arrimo aan waxba ka qusayn iyaga. sidaasi darteed ayaan ku leeyahay, ma beddelmayaan dadkan si kastoo aad u beddesho ee u daa khiyaarkooda oo keliya adiga ka digtoonow oo ahow qof aan ku saamoobin ficiladooda xunxun. xuduud u samee dadka sunta ah waa kuwa ku ciyaara qofka dhibanaha u ah iyaga ee aaminay qof ahaantooda, rumaystay hadalladooda iyo ficiladooda, kana rajeeya wax wanaagsan iyaga. qofkaasoo ugu dambayn ay ka dhigtaan qof iyagoo kale ah, xumaanta raadiya, dadka ku mashquula, danihiisa gaba, iyagana ka sii liita. sidaasi darteed ayaan ku leeyahay, u samee xuduud iyo xad idin dhexaysa marka aad la kulanto dadka negatifka ah ama sunta leh ee doonaya inay noloshaada ku soo biiraan, soo farageliyaan. waa inaad isaga sheegtaa xadka iyo xuduudda idin dhexaysa inta ay la eg tahay, oo haddii adiga aadan xad u samee, shaki kuma jiro inay soo faragelin doonaan arrimahaaga gaarka ah ilaa ay ku gaarsiiyaan heer aad ka qoomamayso ku soo biiridda ay ku soo biireen noloshaada. kala hadal khaladaadkooda dadka sunta ah ee aan lahayn anshax iyo damiir celiya, marka ay kugula dhaqmaan si aadan mudnayn, soona farageliyaan arrimahaaga gaarka ah, waxaad u sheegtaa inaadan marnaba raalli uga noqon doonin inay soo farageliyaan arrimahaaga gaarka ah, weliba si fasax la'aan ah, taasoo xumaan aysan kaa ahayn, balse ay kaa tahay inaad leedahay shakhsiyad dhowrsan oo aan qofna siday doonto ka yeelan karin. ha jarin, balse beddel qaabka aad ula dhaqanto dadka sunta ah ee xumaanta badan. waxaa lagu taliyaa in la jaro oo laga fogaado, maadaama ay yihiin dad aan marnaba ka waantoobaynin xadgudubyada iyo dhaawacyada ay u geystaan dadka aaminay. aniga ahaan kuma dhahayo jar qofkaas, balse waxaan ku leeyahay
beddel qaabka aad ula dhaqanto, waayo dadka noocan ah waxaa laga yaabaa inay idinka dhexayso dhalasho oo aad tihiin ehel, asxaab, saaxiibo, nolol wadaag ama deris oo aadan meel ku kala fogaan karin, noloshuna ay wax isku kiin xiran yihiin. keliya waxaad si hoose u joojisaa qiimaynta gaarka ah aad u haysa qofkaas, danaynta faraha badan ee aad danayn jirta qofkaas, oo keliya deeqsii salaanta, iskana indhatir hadalkiisa iyo arrimihiisaba, oo habdhaqankaaga ku dabaq aayaddan alle uu inoogu sheegayo qur-aankiisa, kulana hadlaya xabiibkeennii Muxamed sallallahu calayhi wasallam ay ahayd khudil cafwa wa'mur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin, oo macnaheedu yahay cafiska qaado, waxa wanaagsan dadka far, jaahiliintana ka jeeso. sidaasi darteed ayay muhiimkuugu tahay in aadan jarin dadkan, balse aad isku daydo in habdhaqankaaga aad wax ka beddesho, adigoo joojinaya la hadalkooda, qiimayntooda, waqtisiintooda iyo wax kasta oo u fududayn kara inay kuu soo dhowaadaan, ee keliya deeqsii salaanta kana jeeso. dhab ha u qaadan ficiladooda. dadka sunta ah marnaba dhab ha u qaadan ficiladooda iyo hadalladoodaba, oo ha rumaysan wax walba ay kuu sheegaan. imise qof ayaa maanta shalay iyo qoomamo dhex taagan kadib markii ay qaateen hadalladii dadka sunta ahaa? imise guri ayaa burburay oo isku waayay nolosha dad isjeclaa oo dhexdooda ay ka dhex shaqeeyeen dadkan sumaysan ee damiir la'aanta ah, wanaaggana aan arki karin? imise qof oo isku wanaagsanaa ayaa ku kala tegay dabkii ay ka dhex shideen dadkan sunta ah ee aan arki karin dad isku wanaagsan? dhabtii waa wax aan la soo koobi karin dhagarta iyo saamaynta xun ay geysteen dadkan. adiga marnaba ha rumaysan wax kasta oo ay qof kale kaaga sheegaan ilaa aad hubsato oo yaysan kaa dareemin inaad danaynayso hadalladooda, si aysan waddo kaaga furan dareenkaagan ay ugu ciyaarin. dheh maya dadka sunta ah ee dhagarta badan. waxaa ka badbaada xumaantooda iyo dhagartooda dadka sirtooda fahmay ee aan marnaba wax ka oggolaan, oo aan siinin wax fursad ah marka ay wax weydiiyaanna ka hor keena maya. adigana inaad dhahdo maya marka ay wax kuu soo bandhigaan. dadka sunta ah ee raadinaya waddo ay kugu maamulaan waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn, oo waxay xaqiiqsanayaan inaadan ahayn dadkii ay sidee doonaan ka yeelan jireen. hala wadaagin xaaladahaaga gaarka ah. marka aad ogaato qofka inuu yahay qof sun ku ah naftaada oo niyaddaada aysan degin inta uu kaa agdhow yahay, waxaad ka xirataa albaab walba uu ka heli karo sirahaaga, kalena socon kara xaaladahaaga. sababtoo ah dadka sunta ah furaha ugu weyn ay ka soo garan afaarahaaga iyo noloshaadaba waa inay ogaadaan sirahaaga. waa inay helaan sirtaada, oo haddii mar ay ogaadaan waxa aad ku sugan tahay iyo arrimaha kuu qarsoon, waxay si fudud u beddeli karaan muudkaaga, oo waxay ku gelin karaan xaalad adag oo wadata tashwiish iyo walwal. sidaasi darteed ayay muhiimkuugu tahay mar haddii aad la dagaalayso dadka noocaan oo kale ah, kana badbaadinayso naftaada, marnaba yaysan kaa helin wax sir ah oo ka xiro albaabadaada. ogow, qofka muhiimsan waa adiga. dadka sunta ah ma ahan dad naga fog. sidaas ay tahay waxaa dhici karta adiga og qofka inuu yahay shakhsi u daran naftaada, kuna soo gambada xiriir idiin dhexeeya, adigana aad ku qiimaynayso xiriirkaas, ayaa laga yaabaa inaad isdhahdo u sabar, balse isaga ma garta intaas, oo waa haran aan daahirsameyn. waa haran aan daahirsameyn si kastoo loo daahiriyo. adiga waxaa kula gudban marka inaad ilaaliso badqabka naftaada, gaar ahaan qalbigaaga, iyo difaacidda noloshaada, iyo weliba ka talinta samahaaga, oo ha u dhiman qof isaga diyaarinaya karfantaada kuna mashquulsan dhibaatayntaada. yaray waqtiga aad la qaadato dadka sunta ah. fursadaha ugu badan ay dadka ku dhibaateeyaan waxay ka helaan isla qofka ay dhibaataynayaan, iyagoo waqti la qaata, baara xaalkooda hoose, dhegaysta waxyaabaha ku soo kordha qofka, kadibna halkaas fursad uga hela ay tashwiish iyo stress ugu furaan, iyagoo ugu yaraan ku dhaga hadla. sidaas darteed ayay aad kugu wanaagsan tahay inaad iska xirto albaabkan, oo aadan waqtigaaga marnaba ku bixin la hadalka iyo dhegaysiga dadka sunta ah. yaray danaynta dadka sunta ah ee negatifka ah. qof kasta kuma yeeshaan saamayn taban oo uma geystaan waxyeelo ilaa qofka iyaga daneeya mooye. ma jirto sabab keenaysa in la hadalkiisa iyo ficiladiisa la daneeyo qof lid ku ah ama u daran naftaada, caafimaadkaaga iyo dareemahaaga. mar haddii aad ogaato qofka inuu yahay qof kuu daran adiga, ka yaray fursadaha iyo danaynta
si saamayntiisa taban aad uga badbaado. Ugu dambeyn, dadka qaar ee sunta ah ama negatifka ah waxay xal kasta iyo wanaag kasta ka dhex arkaan cillad. waa sida duqsiga oo kale oo waxay indhaha la raacaan meelaha wasaqda iyo darxumada taallo oo marnaba lagama yaabo in la arko iyagoo wanaag ka talinayo kuna ammaanayo qofkiisa. hagaag inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay ilaalinta badqabka naftaada dareen ahaan, maskax ahaan iyo shakhsiyad ahaanba waxaa mas'uul ka ah adiga oo ma jirto qof ka horaysa naftaada oo daryeel iyo ixtiraam kaaga baahan, balse naftaada ayaa ah number 1. aad ayaadna ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.